alkubiista ayaan ku ay soonku soo miisaalak sama insha Allah ilaahay la waxaan rabaa inaad soo duceysaan wax dibadda inay soo duceysaan waxay dalkii dibadda dhamaantii ku soo duceynayna inaan kristiinimada ka hartid sama insha Allah. السلام عليكم وعن أول نكسن صاحب يال سود دوادة وحدك سود دواتان برنامج كنا تحناها الصونك يعفماتك كاسو كوبان طبعا يشن حلقات أما طبعا يشن قيبو حلقات أول رئيسنا وحيدين سو تشي دونا ما أنت يوسننا ورمضان أي تهاي سدح وحن أسوق بين دونا سي ما ندافع حلقات كواد أي ما أنت وحد ميتك إنه صارن رمضان ووقتك وهبون بالوقت كستاحن لسكتشو شنكر لقونا بدري كرو عمل ونكسن أما وحكل أو ونكسن balwadaha xun ee xilliga ramadaanka la soo afjari karo waxaa kamid ah dhageysiga heesaha iyadoo lagu bedeli karo dhageysiga quraanka iyo waliba nabi amaanada sidoo kale wuxuu qofku iska joojin karaa ama iska xarimi karaa iyadoo awalba xaraan ay ka ahayd beenta iyo xanta waxa kale oo mamnuuc ah oo qofku ka fogaan karaa xilliga soonka waxa ay tahay balwadaha noocyadooda kala duwan sida cabida sigaarka koolada shiishada iyo waxyaabaha la midka iyo sidoo kale cunista qaadka ayadoo waqtiga balwadahaasi xun lagu bedelayo akhrinta quraanka dhageysiga muxaadarooyinka diiniga ah nabi amaanada iyo waliba qofka inuu tasbiixsado oo uu ku mashquulo istighfaartiisa iyo tasbiixsiga waxa kale oo qodob muhiim ah lagana rabo qofka xilliga ramadaanka inuu iska bedelo waxay tahay inuu joojiyo dhafarta ama in xilliga dambe la soo jeedo taasi oo awal qatar caafimaad oo fara badan qofka nafsadiisa u horseedaysa waxa wanaagsan xilliga ramadaanka qofku xilli horeba inuu iska seexdo si xilliga dambe oo u soo tooso kadibna oo u tukado salaadaha sunnada oo u baahan yahay maadaama bil cibaado oo lagu jiro sidoo kale tana oo fursad u helo suxuurta iyo waliba salaada fajrka laakiin qofka adoo habeenka dhanba seexan taas waxay ku noqonaysaa xaalad caafimaad ahaan aan u fiicnayn nafs ahaan aan u fiicnayn diin ahaan aan u fiicnayn bulshada muslimiinta waxay waqtigooda inta badan ku bixiyaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan akhrinta Quraanka tukashada salaada cibaadaysiga ama adkaar akhrinta ka shaqeynta arrimaha bulshada quudinta fuqarada ama masaakiinta iyo waliba caawinta darbijiifka qodobka muhiimka ah ee aan u dan leeyahay wuxuu u yahay cabida sigaarku waa xaalad aad u khatar badan taasoo sababta mid kamid ah kansarada dunida ugu badan uguna qatarta badan uguna dhimashada badan waana kansarka sambabada waxaan inta badan aragnaa rag badan oo Soomaaliyeed oo la ildaran xanuunada ku dhaca sambabada kuwaas oo qatartoodu ama dhibka ugu badan oo keenay sigaarka xilliga soonkuna waa xilliga ugu fudud oo qofku iska joojin karo cabida sigaarka magacay waa bismillaahir rahmaanir rahiim Axmed Usmaan Cabdi Walow lagu magac daray waa ramadaanka muslimiinta ramadaana markay wax ka wanaagsan mala waa fursad صح إن حريص لبرسلوس انتقد الليبتو صح ما شعنا لرنك إلهي قارسيا قارع أنا وعن جعلها إن نستون كسي بلا الكويس أنا هاي وإلهي وعن الكويس أيام كل أي صونك وسوم يزالك سما إن شاء الله إلهي لا وعارض أنا تسود عيسان واحد إنه يسود عيسان واحد تركي دبت بشوف midkan waa mid kamid ah aabayaasha Soomaaliyeed kaasi oo dadka Soomaaliyeed ka codsanaya in bisha barakeysan ee Ramadaan fadligeeda ay ugu soo duceeyaan in uu ka go'o dhammaan balwadaha uu leeyahay waad ku mahadsantahay la socoshada barnaamijkeena xalqadii koowaadna maantay halkaas ayaan ku soo gabagabeynayna